wajigii labaad ee wadahadalada xalinta colaadihii deegaanada Tawfiiq iyo Afraaqo ayaa maanta ka furmay deegaanka Tawfiiq ee gobolka Mudug. wajiga labaad ee wadahadaladan oo ay garwadeen ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib-u-heshiisiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya, taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka General Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Qooje, odayaasha dhaqanka labada beelood iyo shacabka deegaanka Tawfiiq. kulanka furitaanka wadahadalkan ka furmay deegaanka Tawfiiq oo daba socda kulankii 18 bishan ka dhacay deegaanka Afraaqo ayaa laga soo saaray qodobo lagu xoojinayo heshiiska labada dhinac ay ku kala saxiixdeen deegaanka Afraaqo iyadoo sidoo kalena lagu magacaabay guddi ka kooban 14 xubnood oo kala matalaya labada beelood, waxaana qodobada lagu qeexay kulanka furitaanka wajiga la isku afgartay kamid ahaa dardargelinta iyo fulinta qodobada heshiiskii lagu kala saxiixday Afraaqo, sidoo kalena bulshada deegaanadii Afraaqo iyo Tawfiiq lagu wargeliyo dhowrista heshiiskan in wadahadalada lagu dhameeyo xal waarana laga gaaro wax kasta oo dhib soo kordha, in guddi isku dhaf ah oo labada beelood ay gacan siiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, in odaygii u hoggaansami waaya heshiisyada nabad oo ciidanka xoogga dalku ka qaadi doonaan talaabo adag, in gogash xigta ee wadahadaladani ay ka furmaan magaalada Gaalkacyo 5 bisha Febraayo sanada 2020. qodobada heshiiskan wajiga labaad ee wadahadalada ka furmay deegaanka Tawfiiq ayaa si rasmi ah waxa uu wada saxiixay guddiga isku dhafka ee labada beelood iyadoona goobjoog ka ahaayeen taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka General Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Qooje iyo Roble Axmed Daahir oo ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib-u-heshiisiinta dawladda federaalka Soomaaliya. wadahadaladan ayaa iyagu daba socda heshiisyo muddooyinkii u dambeeyaba taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka dhaxwadeen beelaha walaalaha ee colaadu ku dhaxmartay deegaanada Afraaqo iyo Tawfiiq, waxaana 19 bishan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku guuleysteen daminta colaadaasi iyo afgarada laga dhex furo labada beelood. talaabadan ayaa iyadoo ah mid ka duwan wadahadaladii lagu qaban jiray magaalooyin kale, maadaama wadahadaladani lagu qabtay deegaanada Afraaqo iyo Tawfiiq oo iyagu ah deegaano ay ka jirtay colaadaasi. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.